الله وبركاته. أصحاب تقالي ملك استاجوكتين كسودة وهذا channel كاني حرمت عن عفمات فولاش نشوفي هذا نقوله وكل كني أولي سعودة فلوج كني أولي سعودة ما شاء الله وشيدين ماشي نقرأ بدنا نشوفنا ما أنت الحيس مركز سواء ماذا لكن هو رئيس أو شيء متشعلين عن سوق اللي بتهدك بعدي يوتيوب كيجا فلوج بدنا أكيد دين بس أنا دك بدنا مركز بدنا بحق أو ملا نيتشر كذا هاي ما أنتو حيني هاي توبيك آد ومهم دك بدنا إلى سو حريري ده شوف التوبيك هذا لا هو برنامج كل سودايو وحيالها عاون كرا قفكم مركز ستريس كهايستو يصير فلوض أو بحكاية ستريس كا iyo hadda dhaad maanta buuq ama waxba ay furan si uga bixi karaa waxyaalaha uga bixi karaa iyada cuntana waan soo wada insha Allah hadda waxyaalaha natural ka raba inaan ku soo daayo waxa ugu horeeyo waxa la dhahay qofka waxa u fiican inuu helo kool hurdo fiican oo ku filan hadda ka bada horna wax badan aan ka soo hadlay hurdooyinka in qofka helo ilaa 6 saac ilaa 6 saac ilaa 8 saac inuu helaan lahay ayaa laga rabaa qofka bini'aadanka ah ta ku xigto waxa la rabaa lahay inuu qofka uu exercise sameeyo exercise ka haato ama xarig sameeyo ama wax banaanka oo baxo 3 daqiiqo maalintii soo socdo waxay ahaato inuu exercise engage gareeyo loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay exercise for stress ku haysto ama la dhahayo buuqa ku furna lahay waxa laga rabaa inaa qof haysatid ku dhow aad trust gareysid aamin ah oo waxyaalaha u sheegin kartid waxaas waxay keenaysaa qofka relief waxa waaye marka qofkii wixii ku jiray uu qofka la hadlo waxaa ka helaysaa deganaansho badan iyo farxad iyo fudud ka helaysaa waxa kale u fiican qofka xal dhahay inuu time kiisa xitaa qofka xalay stress ka sometimes waxa keenaya qof lack of time management dadka ku dhaco waxa laga yaabaa waxyaalo badan shaqooyin badan inay haysid shaqooyinkaas waxa laga yaabaa marka time ki inuu kugu yaraado halkaas ku kaaga furmo ina time management asameyn kartid time kaaga schedule leedahay taas wuxuu ku fududeynaysaa iyada ina waxa la dhahaa stress ku ka yaraado waxa kale oo fiican markuu kugu furan yahay ama caruurtaada meeshan imaadid iyo stress ka hoos u ridaa waxa kale oo fiican lahay stress ka cuntooyinkan oo ka hadli doona waxa la dhaho kale inuu qofka xalay bini'aadanka markay buuq iyo waxaas ku furan yihiin waxa u fiican lahay shaaha oo waxa la dhahaa oo shaaha oo waxa ka wadan oo dhaqaniyeedka shaaha jirta takor aan soo hagaajiyo kale oo linaan lagu shubanayo waxa jira kafeega wuxuu ahaadaba waxaas cabi kartid ama even snack hada haystid sida keega ama waxa la dhahaa ice cream waxa adiga jeceshay ama chocolate ina soo qaadatid cuni kartid qof adoo la hadlaysid waxyaalahaas dhan waxay ka bixinayaan sida fudud oo waxa waaye uga bixi kartid stresska marka buuq ku furan yahay dhinaca diiniyan hadaan guud galno waxa lahay qofka markuu buuq iyo stress ku furan yahay haduu laba rakac salaad u tukado ilaahay baa dhaho qofka markii nabigeena sallallahu alayhi wasallam xaq soo wareegtay laga soo wariyay marka ku imaado xalay buuq ama stress ama wax dhib inuu laba salaad u tukan jiray waa sunnadii nabiga soo aroortay sallallahu alayhi wasallam waliga ma aragtay adigoo buuq iyo xaq ku furan yahay tasbiixda qabsatay isla markii waxa dareemsa relief ما شاء الله تبارك الله يا بيسا وحكى له جرت دين عديني أنا كهلا يا حتى وحاني سميه واحدة أدو قفك ستريس بكو هيستا ده قرآن لقاها قشتي إسلام مركي واحد ريمسا فرحات رين واحد سبحان الله وشي إلى كعبة واحد بالسيط وكعبة دقايا وحكى له أفي عن قف حتى إنه مركو ستريس إنه إكسايز سميه إكسايز نصح لي أم حرك سميه حتى وحكى له أفي عن قف إنه شاور قاعته أما خليه قويستو أما قويس كلول هذا أوما أما هاتو ميد قوو وفي عاتي دتك دجنيسا حكى لو في عن دينين هذا سيجا نقف دو قرآن أخلصه أم أذكارتي سيلا يسكو حيرو وحسنا ووحا استرسكا كافر قاعدايو أما السيدة فوق أو بحيسي دواي مركا وحاك عليه أو في عن انتوين حاجرو دتك استرسكا كدجي مركو استرسكا قفكا قبو iyadana part 2 waan soo celin doona haddaan dhinaca diiniyan u sii guud galo qofka xitaa kitaabkaaga dadka soo qaadatid oo ilaahayga kume waxa arkay dhinaca quraanka diiniyan meesha furtid ayad kasta ay kula hadlaysaa hadda stress ko isticta ilaahay ku soo adinaya ayad ka hadlayso ilaahay ku dhahayo haka haka niyad jabin ama haka don't be sad ama don't lose hope waliga ina dhinaca ilaahay markasta dhinaca af Soomaali dhinaca Soomaaliya radkaada asxaabta maanta wallahi ma sha Allah tabaaraka Allah vloggiga aad aan u enjoy gareynaya waxaan asxaabtaada la qaybsan lahay meesha joogtidba meesha nagala socotiin waa xarunta cuntada caafimaadka walaashiin shukri aadan buule wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh